السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو كورسا قون channel. وحنا هي عبد الله عثمان حاجي. عشر كنا وحنا قدنا 10 عصب وجرامر sidoo kale waxaan noqon doonaa 10 taxana grammarku waxaan noqon doonaa qaybaha ugu badan uguna muhiimsan ee aan soo gelin doono channelka hadaba waa inaad si fiican ugu xidhnaataan lana socoto 10 walba waxaan ka bilaabi doonaa basic ilaa advanced ayaan wadi doonaa maanta 10kan wuxuu ku saabsanaan doonaa ama aynu guud ahaan ku koobnaan doonaa saddex qaybood kaliya waxa uu noqon doonaa what is the grammar aynu eegi doonaa bal waxa uu grammarku yahay grammarkan bilaabi doono oo waxa fiican marka aad shay bilaabayso inaad baratorta shaygaas waxa uu yahay iyo qeexitaankiisa aynu sidoo kale waxaanu arki doonaa maanta sentence and its structure oo aynu arki doono objectives kale inaga doonayo oo aynu dhigan doono casharada dambe sidoo kale waxaanu arki doonaa definition of the sentence oo kamid ah objectiveska sentence and its structure oo aynu maanta si bilaabi doono qaybaha kale ka hadhan casharada dambe aynu raacin doono hadaba daawasho wacan waliba ha ilaawin inaad qalin iyo soo qaadato book sidoo kale ha ilaawin inaad video ku ceshan karto joojisan karto ama pause oran karto oo aad adigu maamulan karto waxaan filayaa inaad diyaar u tahay hadaba aynu bilowno What is a grammar What is a grammar waa maxay grammar Grammarku is a rule that we put a right word in a right position Grammarku is a rule waa sharci that we put kaasoo aynu dhigno a right word kelmad saxa in a right position meel saxa shuruucda aad u adeegsanayso inaad kelmad saxa meel saxa ka dhigto sentence-ka shuruucdaas ayaa lagu bartaa grammarka Grammarku is a set of rules that explain how words are used in the language. Grammar is a set of rules that explain how words are used in the language. Grammarku waxa weeyaan waa set of rules waa kooxo rulala kuwaasoo sharaxa sida kelmadaha loogu isticmaalo luqadda. Grammarku waa ururo ama waa kooxo rulala ama shuruuca that explain kuwaasoo sharaxaya ama sharaxa how sida words kelmadaha are used loogu isticmaalo in the language luqadda the words kelmadaha in the sentence ee jumlad kasta ku jira are arranged waxa loo habeeyaa in a certain way hab gaar oo la yaqaan Englishkuna has its own way waxa uu leeyahay habkiisa u gaarka ah of arranging words ee kelmadaha loo habeynayo in the sentence ee jumladda So sida darteed grammarku helping us waxa inaga naga caawinayaa how we arrange sida aynu habeyn lahayn that words kelmadaha in the sentence ee jumladda waxaan filaynaa inta fahantay marka hore waxaan ku yiri grammarku waa maxay grammarku wax kala ma aha waa shuruuc baad ku dhigan doontaa shuruucdaasi oo ku sheegaya sidii aad kelmad sax ah u dhigi lahayd meel sax ah aad u dhigi lahayd grammarku wuxuu ku sheegayaa kelmad sax ah saad meel sax ah u dhigi lahayd grammarku sidoo kale waa ururo shuruuca waa shuruuc kooxo shuruuca ama waa sharciyaad ku dhigan doontaa sharciyadaas oo sharaxa waxay sharaxaan sida kelmadaha loogu isticmaalo luqadda kelmadaha Englishka sida luqadda loogu isticmaalo ayay sharaxaan sidoo kale kelmadaha waxaan ku jira sentence kasta waxa loo habeeyaa hab gaar ah oo verb soo horeeya meeshid badanka ama arkiba meeshid verb soo horeeya waa inuu subject ko kale soo horeeyo waa inuu verb ko kale raaco waa inuu wixii kale si raacaysto object ko kale sidaarteed kelmadaha waxa loo habeeyaa hab gaar ah Englishkuna wuxuu leeyahay hab u gaar oo loo habeeyo kelmadaha grammarkuna wuxuu naga caawinayaa sidaynu u habeyn lahayn kelmadaha ku jira sentence-ka bal waxaad eegtaa example-kan clean from the killed a cat yesterday he These are all English words but they have not been put together correctly The correct order is the room is clean He killed a cat yesterday Example-ka haddaynu dib u sharaxo intaan casaanka ku qoraya clean room the killed a cat yesterday he waa qalad weey waa dhammaan horta waa English words waa kelmado Englisha laakiin looma habeyn sidii loo doonay grammatically inay sax noqdaan oo ma soo horeeyo subject-kii ma soo horeeyo waa la isdhaafiyay sida darteed waa qalad habkaasi grammarku wuxuu ka caawinayaa hadaba saad habka uga dheeraan lahayd hababka noocaas oo kale ay kelmadaha la isdhex dhigayo tusaale ahaan imka haddaan ku raado clean nadiif room qol de waa article wax macna ma sameynayso haddaan ku raado killed a cat yesterday he killed wuxuu dilay a cat bisad yesterday shalay he isagu de wax macna sameynaysa af Soomaali xataa haddaan ku raado
ma jirto sidaa darteed marka aad u habayso habkii saxda ahayd ee grammarkuna ka caawiyo saad u habeyn lahayd grammarkuna wuxuu ka caawinaya habka saxda ah saad u habeyn lahayd sidaa darteed habka saxda ee kelmadahaas marka loo habeynaya wax weeyaan the room is clean waxa kan hoose ku qoray greenka the room is clean qolku waa nadiif he killed a cat yesterday shalay bisad buu dilay saasoo kale grammarka caawinaya kelmadaha u habayso hab saxa sidoo kale grammarku waxa uu aad ugu muhiim yahay ardayda sida ardayda secondary-da ama ardayda schoolska kala dhigta sida secondary ama primary ama qofkii luqadda si gaar ah u dhiganaya ama si guud kala u dhiganaya ee luqadda inuu barto doonaya marka waa muhiim grammarku aad buu muhiim examska ama interviewska ama examska badankooga waxyaabaha ku jira waxa kamid ah grammarkan ay u badan yihiin marka grammarka intan waa iska hordhac waa what is the grammar ama waxaan ku jeedno waxa uu grammarku yahay example keerno ku raaciyoon oo orderka inoo sheegay ama sida loo habeeyo kelmadaha ama loo arrange gareeyo in grammarkuna ka caawiyo sida loo arrange gareyn lahayd kelmadaha ama loo habeyn lahayd marka casharkeena maanta qaybtiisa koobaad oo ah what is a grammar intaasan ka gudbanaa qaybta labaad baan gudbanaa oo ah sentence and its structure marka maanta ma dhiganana sentence and its structure oo dhameystiran laakiin oo casharkii ayaa dheeraanaya marka ardayduna way ku caajiseen casharka aad ka u dheer marka casharka ayaa dheeraanaya sentence and its structure objectiveska aynu dhigan doono ama waxa la inaga rabo intaan dhiganano ama waxaan ku dhigi doono ayaan halkan kugu sheegi doonaa sidoo kale casharkeena saddexaad ee maanta waxa qaybta saddexaad waxay noqon doontaa inaynu definitionka sentence-ka bal waxa uu sentence yahay aynu yar sheegno kabacdi casharada dambe aynu ku dhigan doonaa objectiveska aynu maanta halkan ku sheegno tusaalahaan in this part qaybtan which is sentence and its structure qaybtan sentence and its structure you will learn waxaad ku baran doontaa definition of the sentence bal waxa uu sentence yahay inuu ogaano ama definitionkiisa ama qeexitaankiisa oo aynu maanta dhigan doono waxaanu ku dhigan doonaa kinds of sentence noocyada sentence-yada oo aynu gadaal ka dhigan doono ama casharada dambe oo ay kamid yihiin declarative oo ay kamid yihiin interrogative sentence oo ay kamid yihiin imperative oo ay kamid yihiin exclamatory afarta sentence baan ku dhigan doonaa kinds of sentence oo declarative oo ah statement ama hadalka caadiga ah interrogative oo ah is question ama su'aashi imperative oo ah command oo kale ama amar waxyaabaha amarka oo kale ama suggestion oo kale exclamatory sentence oo noqonaya wixii surprise la yaab oo kale waxa kale dhigan doonaa structure of a sentence baan dhigan doonaa waxaan dhigan doonaa kala simple compound complex sentence ayaan dhigan doonaa saddexda qaybood dhigan doonaa marka casharka intan waa objectiveska aynu ka dhigan doono sentence and structure marka intan maanta kuma wada dhigay waxaan ku dhigi doonaa definition of the sentence kuma qeexi doonaa casharkeena labaad wuxuu noqon doonaa kinds of sentence oo afartaas aynu sheegi doonaa definition of the sentence kan eegno definition of the sentence waa casharkeena maanta qaybtiisa saddexaad definition of the sentence bal waxa uu sentence yahay eegana what is a sentence waa lagu weydiin doonaa examska way ku jirtaa what is a sentence waa maxay sentence a sentence ama jumladu is an arrangement waxa weeyaan waa tartiib ama waa habayn of words oo kelmado la habeeyay that makes kuwaas oo sameeya complete sense macna dhameystiran a sentence is an arrangement of words that makes complete sense sentence wax kala ma ahay waa arrangement waxa weeyaan waa an arrangement waxa weeyaan waa habayn la habeeyay kelmadahaas oo sameeynaya macna buuxa sentence ku hadduu macna buuxa sameeynin ma aha sentence waxaas it must be meaningful waa inuu noqdo mid micnihiisu buuxo hadduu sentence ku wax micno buuxa lahayn ma aha sentence it must be acceptable waa inuu noqdo mid ay aqbali karayaan to the speakers of the language dadka luqadan ku hadla mid ay aqbali karayaan waa inuu noqdo mid possible aan uga jeeda halkan oo sentence waa inuu mid possible noqdo acceptable means possible waa inuu noqdo ay aqbali karayaan dadka luqada ku hadla uu noqon karo wax runad oo dhici kara haddaan ku yiraahdo geed baa dhaqaaqay ma aqbali karayaan dadkan luqada ku hadla sida ama Soomaali ama English ama luqad kaleba sadarteed lama oran karo waa jumlad lama oran karo waa sentence waxaas mar hadduu possible ahayn waanu sidoo kale micno buuxa leeyahay oo haddaan ku raahdo imika gaariba haddaan ku raahdo su'aal bas ka weydiinaysaa waxaad leedahay gaarigu maxay gurigiiba haddaan ku raahdo what badan oo maxaa guriga ka dhacay waanu noqdo mid meaningful oo micnihiisu dhameystiran haddaan ku raahdo gurigiiba aan tagay haddaan ku raahdo waa su'aal iska weydiin kartaa laakiin dad su'aal iska weydiisan ku raahdo xasan wuxuu su'aal bas ka weydiinaysaa wixii baad oranaysaa Soomaa marka kaasoo kale ma aha sentence waanu micno buuxa leeyahay
waxa jira hal kelmad oo sentence dhameystirana stop oo kala kuri istaag waa sentence dhameystiran sidoo kale waxa jira dhowr kelmadood oo sentence ahayn he is going to hadan ku dhaado waa kelmado fara badan soo ma he is going to wuxuu tagayaa hal ku tagayaa wadana markaa wuxuu tagayaa hadan ku dhaado hal ku tagayaa wadana su'aal bad iska weydiinaysa waa kelmado badan laakiin waxa micno sameeyay inuu jiro sentence na ma oran karno sidoo kale waxaan ku hal kelmad sida stop oo kale ayaa sentence dhameystirana waayo micno waxay leedahay stop hadan ku dhaado istaag waa micno waxay leedahay wad fahanti oo istaagaysa sadarteed sentence-ku waa arrangement of words waa tartiib kelmada ama kelmada la isku habeeyay kuwaas oo sameeya micno buuxa waan noqon sentence-ku mid micnihiisu buuxo oo aan su'aal iska weydiin kareyn waan noqon ma aqbali kareen dadka luqadda ku hadla oo possible ayuu noqon impossible dayixiiba hadlay oo kala taa ku raahdo waa impossible sadarteed ma aha aanay unacceptable way sentence la aqbali kareyn weeyaan salahan mursal ninka la yiraahdo is driving a car baabur buu ka xaynaa waa sentence dhameystiran the room is clean qolku waa nadiif waa sentence dhameystiran come in please fadlan soo gal waa sentence dhameystiran stop baan ku yiri istaag waa sentence dhameystiran waayahay sentencedan waxay leeyihiin dhamaantood subject حتى stop way leedahay subject iyo come iyo laftiga subject way leedahay laakiin subject-kii waa la hide gareeyo kuma muuqdo waa la clear la fahmaya xagga dambe inta ka sharxi doonaa laakiin mursal is driving a car mursal baabur buu kaxaynaya subject-kii waa maxay waa mursal verb-kii waxa weeyaan waa is driving object-kii waa maxay waa a car kan waa maxay subject-kii waa the room sadarta sentence-yadu dhamaantood badankoodu ama dhamaantood waa inay lahaadaan subject sentence kasta waa inuu subject lahaado sentence kasta waa inuu subject lahaado each of these sentences dhammaan sentence-yadani tells us waxay noo sheegayaa something shay about ku saabsan a subject dhammaan sentence-kani wuxuu noo sheegayaa shay ku saabsan subject tusaale ahaan mursal baabur buu kaxaynaya mursal waa subject-kii baabur buu kaxaynaya dawa wixii uu qabanayay oo wax ku saabsan mursal qolku baan waa nadiif wax ku saabsan qolkii weeyaan and each of these sentences dhammaan mid kasta oo kamid ah sentence-yadana makes wuxuu sameeyay complete sense micno dhameystiran itself isaga la faham mid kasta wuxuu leeyahay micno dhameystiran tusaale ahaan gaarigu mursal kaxaynaya baan ku yiri de micno dhameystiran buu leeyahay su'aal iska weydiin karaysid qolku waa nadiif micno dhameystiran weeyaan oo su'aal iska weydiinaysid istaag baan ku yiri stop micno dhameystiran bay leedahay de waxba su'aal iska weydiin maysid come in please fadlan soo gal micno dhameystiran bay leedahay oo fadlan kaalay fadlan soo gal ama fadlan kaalay micno dhameystiran bay leedahay oo qofkan aad la hadlaysaa su'aal iska weydiin karayo way hadaan ku raahdo ka waran the room qolku de micno dhameystiran male the room is baan ku yiri waa is clean is large baan ku yiri baadan doono waa micno dhameystiran leeyihiin all the above sentence dhammaan sentence-yada sare have waxa ay leeyihiin a subject waxay leeyihiin subject ama ficil sameeye and each sentence kastana tells us waxa inaga inoo sheegayaa something shay about ku saabsan subject dhammaan sentence-yada sare waxay inoo sheegayaan shay ku saabsan subject-ka waxa sentence-ka raaca mid kastana subject buu leeyahay hatta come in place subject way leedahay ku sheegi doono laakiin stop way leedahay subject the sentence-yada 3 and 4 waa labadan mid ku sheegay also have a subject waxa ay leeyihiin iyaguna subject but their subject is googa ama ficil sameeyashooda are only understood kaliya wala fahmaya maxaa yeelay waxaan ku yiri kaalay macnihii waxay ka dhigan tahay adigu kaalay you baa u qarsoon waxaan ku yiri istaag macnihii waxay ka dhigan tahay adigu istaag bay ka dhigan tahay marka subject-kiisii kaliya wala fahmaya oo uu u qarsoon yahay marka tusaale ahaan come in please micnaheedu waxa weeyaan you adigu come in please marka subject-kii waa you oo way u qarsoon tahay stop micnaheedu waxa weeyaan you stop adigu istaag oo way u qarsoon tahay subject-kii u qarsoon yahay ama kii ficilka sameeyay oo markaan ku dhaahdo istaag adigana aan istaag ku leeyahay yani adigu istaag bay ka dhigan tahay istaag baan ku yiri adigu istaag bay ka dhigan tahay marka ka wax sameynaya waa adiga subject-kiina waa adiga marka you baa u qarsoon meeshii come in please baan ku yiri fadlan soo gal come in please you come in please kii wax sameynaya waa adiga de waxa filayn inaad fahantay inta yar oo dambe sawir adag tahay come in please hadana dhan way ka fududahay fadlan soo gal baan ku yiri aw subject-kii uu qarsoon yahay oo come in please fadlan soo gal markaan ku dhaado ama fadlan kaalay micnaheedu waxa ka dhigan tahay adigu kaalay ka wax sameynayana de waa adigoo socodkaada soo sameynayo iman doona waxaan ku yiri istaag ka istaagida sameynaya waa adiga sadarteed meeshii you baa u qarsoonde oo adigu micnaheedu waa you xagga dambe ku dhigan doona pronouns-ka marka casharkeena maanta halka inagu joogo la soo casharada dambe share like subscribe ha ilaawin ku xidhnow channel-ka